وكاس maxay haddaba yihiin hababka aad kaga hortegi karto ama aad ku yareyn karto khatarta waxyaabahan viruska iyo wormka iyo trojanka iyo waxyaabahan infectionska computerkaaga ku dhacaya. ta koowaad waxayna nagula talinayaa si aynu waxyaabaha uga hortagno computerkeena inaynu mar walba ka remove karayno waxyaabaha ku jira. sida caadiga waad aragteen computerka waxaynu iska gashanaa flash, waxaynu gashanaa hard drive, waxaynu maanta oo dhan buu iskaga jirayaa, maanta oo dhan baad iskaga isticmaalaysaa. waxyaabaha computerkaaga ka remove kare markaad ku isticmaalaysa shaqo muhiim ama wax kaga qaadanaysid ama wax kaga koobiyeysanaysid mooyaane waa inaad markaad hawshaada ka dhamaysidba markaba ka saartaa. ta kale labaad, computerkaaga waa inaad ku shubataa antivirus programskan aan kasoo hadalnay pageka hore kaga soo hadalnay. sidoo kale haddii cidi email ay kuu soo dirto oo aanad garanayn, inta badan emailiska aanad garanayn ama computer ama uu ka shakiyo email serverkaagu, inta badan wuxuu geeyaa waxaan la idhaahdo junk folderka ama spam folderka ayuu geeyaa. sababtu waxa weeyaan email serverskan aynu isticmaalayno sida Google ama Yahoo, Hotmail ama Yahoo, shirkadahaas waxay isticmaalayaan waxaanaynu maanta kasoo hadlaynay firewallska iyo intrusion and detection systemska iyo waxyaabahan ay isticmaalayaan. so waxyaabaha markay isticmaalayaan serveradan emailku ku shaqeynaya ama email serverku waxay awood u leeyihiin in qofku markuu emailka dirayo ay scan gareeyaan. so waxa ku jira maxay scanning softwares antiviruses. so markay scan gareeyaan haddii emailka ama messageka waxa lagu soo diray ay ka shakiyaan waxay kuu geynayaan maxay junk folderkaaga ama spam folderkaaga. marka muxuu kuu sheegayaa emailku waa niya waxaan lagu soo diray anigu waan ka shakiyey, dee waa ka halkaa yaale adigay kuu taallaa sidaad ka yeelaysaa. so marka waa inaad waxyaabahaas oo kale ka taxadartaa, ha furin. haddii aanad waxyaabahaas email aad sugaysay ama attachment aad garanay wax lagu soo attach gareynayo aad sugaysay ama aad garanaysa haddaanu ahayn ha furin, aad yar iska delete garaan. sidoo kale computerskeenu waxay leeyihin notifications oo haddii computerkaagu uu wax ka shakiyo ama cilada timaado flag yar baa jira in windowska waa inaad eegtaa inuu casaan yahay, casaan buu kuu saaraya. marka kaluu computerkaagu uu secureka yahay haddaynu kaygana marka eegno waa kaas. so xagga yar hoose ka arki maysaan isa tig yaroo greena saaran, laakiin haddii uu wax ka shakiyo calaamadda ma saaraya, wuxuu saaraya cross ama calaamad yaro plus, it means waxbaa jiroon ka shakiyay. so waa inaad si degdega u eegtaa ood xallisaa cilada jirta. sidoo kale waa inaad markaad wax soo download garaysanayso aad iska hubisaa ama waa inaad scan garaysaa. tusaalehaan waxaa jira in sometimes aynu internetka kasoo download garaysano softwareka markaad soo download garayso intaanad install odhan computerkaaga waa inaad tagtaa setupka, waa inaad right click tiraahdaa, waa inaad scanning marisaa in failkani uu safe yahay iyo inuu effected yahay aad iska hubisaa. sidoo kale waa inaad ku shubataa maxay waxa loo yaqaano maxay firewallka. so firewallku wuxuu kantaroolaa computerkaagu markuu internetka ku xidhan yahay wax alla yaala waxa computerkaaga ka baxaya iyo waxa soo galaya internetka ka imanaya wuxuu dhex marayaa maxay firewallkaaga. so waa inaad firewall personal ku shubataa. so windowsku iska wataaba, laakiin shirkadaha waaweyn isagoo software ay iibsadaan oo lacag badan baa lagu iibsadaa. firewall softwares waa qaali weeyaan because they security-googa ayaa muhiima. laakiin inaga personally way iska jiraan iyagoo qaar free haddii computer windows aad isticmaalaysa inna wuuba la socdaaba by default bay Microsoft usoo raacaysa. so firewallku waa kan. muxuu yahay firewallku? firewallku waa maxay? waa security system kaasoo ka kooban maxay hardware iyo software labadaba. so haddii lagu idhaahdo firewallku wuxuu noqon karaa maxay device hardware, sidoo kale wuxuu noqon karaa maxay software applications. so sidaan sawirkanba ku arkayno firewallku kan weeyaan. so tusaalehaan internet baad isticmaalaysaa, wax kastoo internetka ka imanaya outside internetka oo imanaya internal networkaaga iyo wax kastoo ka baxaya internal networkaaga oo u baxaya maxay
outside networka wuxuu dhex marayaa maxay firewallka. So firewallka waxaan idin idhi wuxuu noqon karaa hardware device buu noqon karaa qalab monitor garaynaya systemka in iyo out. sidoo kale wuxuu noqon karaa maxay software applications kaasoo lagu shubay computer ama server ama muxuu ahaayey router lagu shubay. so inta badan waxaan ognahay networka markaan isticmaalnay inuu servers dhex maro ama routers. so ama serverka lagu shubaa firewallka hadduu software yahay ama waxa lagu shubaa routerka laftiisa. so routerada inagu waxaynu naqaanaa kan yare home routerka ama inu guriga dhiganay small routerka yar, laakiin shirkadaha ama companiesku waxay isticmaalaan isagoo waaweyn oo servers oo very powerful because wuxuu leeyahay lot of features for the security ayuu leeyahay. so waa ka so waa inaad sidaas oo kale iska ilaalisaa wax kastoo internetkaaga dibadda ka soo galaya, wax kastoo internetka dibadda uga baxaya waa inuu firewall rules ku controlaa in iyo out kaba uu ilaaliyaa. so uu markaa firewallku wuxuu ka hortegayaa cid kastoo isku dayaysa inay si qaldan ama si sharci darraa u access garaysa ama u isticmaasho networkaaga ama computer systemskaaga. so kaasina waa kaas. so markaa inagu uma baahnin kaa weynee shirkadaha waaweyn isticmaalayaan. shakhsiyan waxaad u baahan tahay maxay personal firewall. so haddaad Microsoft isticmaalaysid waxaad ku qortaa un maxay halkan searchinka maxay firewall wuu ku tusayaa personal firewallkaaga. deedna waa inaad sida upgaraysaa wixii aad ogashay inuu computerkaaga soo galo, wixii aad ogashay inuu computerkaaga ka baxo markuu isticmaalayo internetka. so taasina waxay sahlaysaa maxay qof kastoo isku daya computerkaaga inuu access garayo ama waxaagaas inuu aad ka badbaadid ama aad ka hortagtid ama aad yaraysid khatartaas. so kuwooda bilaashka ah ee personal firewallska iska ama aad iibsan karta ama iska freega la soo degi karta waxaa kamid ah kuwa halkan magacyadooda ku qoran way badan yihiin. laakiin already haddaad Windows isticmaalaysid Microsoft way soo raacisay operating systemkayga uma baahnid inaad mid external ku shubatid, just waxaad u baahan tahay inaad eegtid inuu update yahay firewallka. maxaa haddaba keeni kara in systemkaagu fail garoobo, in computerkaaga ood maanta isticmaalaysa intaad bakhtiysid uu dib u soo kici waayaba? maxaa keeni kara? waxyaabo badan baa keeni kara. waxaa keeni kara in computerkaagu muddo dheer uu virus ku jiray, waxaanaynu maanta oo dhan kasoo hadlaynay uu ku jiray. waxaa kaloo keeni kara in hardwareka ama deviceska computerkaaga ku xidhan muxuu ahay processorka ama hard driveka ama motherboardka inuu damage soo gaadho uu dhaawacmo isagoo dhulka kaaga dhacay ama jug ama inay gubtaan de ilaa waxan waa electronic. khatarta kama ilaalin kartid, waad yareyn kartaa khatarta laakiin khatarta kama hortagi meesha kama saari kartid. anytime way kugu iman kartaa khatare, laakiin khatarta dhaawacay ku gaansiin kartaa waa maxay? waxay ku xidhantay sidaad marka hore uga taxadartay. sidoo kale waxaa keeni kara maxay in natural disaster in waxyaabaha burburka dabiiciga computerkaaga oo wax ku dhacaan, meel ku dunto, dhismo u yaallay oo kuba gubta, biyo gala, waxaasoo dhan waxyaabo iska dabiici oo keeni kara muxuu ahaayey electric isagoo dabka ku jiro short ama dab ku soo dhaco, waxyaabahaasoo dhan way keeni karaan. oo voltage badan ku soo dhaco ama dab badan uu gubi karaa device-kaaga ama computerkaaga, uu fail garoobi karaa systemkaaga. so waxyaabahaasoo dhan baa keeni kara iyo waxyaabo kaloo badan. muxuu yahay haddaba backup? ama haddii computerkaaga hadhow toola aamuso ama uu shidmi waayo maxaa kuu xala? ilaan xogtii ku jirtayna waad waayeysaa haddii aanad computerku wuxuu leeyahay maxay backup. so backupku kaa weeyaan. so backupkana dadku khalad bay ka yara fahmaan, laakiin backupku macnihiisu waxa weeyaan ka hortag. waa sababtan baxda caafimaadka ama dadkan caafimaadka ka shaqeeya ay yidhaahdaan maxay ka hortaggu wuxuu ka fiican yahay maxay daaweynta. so hadhow toola computerkaagii anytime ma damaanad qaadi kartid, waxan waa electronic, maalin buu iska aamusi karaa, waxbaa ku iman karaa, gebigiisaba waa lagaa xadi karaa. backupku waa muhiim, inaad backup samaysaa waa muhiim. backupka saad u samaynaysaa maaha computerku markuu aamuso inaynu raadino sidaynu xogtii usoo celin lahayn. backup macnaheedu waxa weeyaan xogtu markay safeka tayd haysay ina waxba ku dhicin inaad dhowr koobi ka samaysid weeyaan macnaheedu. oo hadhow tole haddii halkan laba sawir aan anugu leeyahay igu jireen oo intaan sawirkii koobiyeystay aan flash ku shubtay sidoo kale aan hard drive ku shubtay deetana computerkaygu uu aamuso dee waxba ka warwari maayo because sawirkii iyo wixii aan u baahnaa waan haystaa, hard drive bay igu jiraan ama flash bay igu jiraan, so I can back up.
I have a backup file. So backupka macnihiisu waa kaa. So macnihiisu waa ka hortag. waad ogtay maalmaha ka mid ah in computerkaagan ay wax ku iman karaan. waayo ma odhan kartid intaad soo istaagtid 100% maxay computerkaygu waa safe, waxba kuma dhacayaan, waan ku kalsoonay, wax walbana way iigu jirayaan. So xogta muhiimka computerkaaga ku jirto dhan waa inaad marka hore copy ama meel aad hadhow toole ka heli karto markay computerkaagan wax ku yimaadaan aad samaysatid. marka waxa lagu yiri maxay waa inaad copy ka samaysaa, waa inaad full backup all your files ka computerkaaga ka samaysaa. sidoo kale waa inaad selective backup ka samaysaa, waa inaad waxaad samayn kartaa maxay inaad daatada dhan wada copyaysan kartid. waxaad samayn kartaa daatada intaad u baahan tahay inaad copyaysan kartid. sidoo kale markaad copy ka samayso ayaa lagu leeyahay copygii waa inaad ka sii samaysaa at least ilaa 3 copy, 3 generation backup waa inaad samaysaa, oo macnaheedu tahay 2 copy ilaa 3 copy oo kala duwan waa inaad ka sii samaysaa oo meelaad. waayo waxa laga yaabaa maxay in copyada laftooda qaar ay shaqeynba waayaan. haddaad hard drive ku copyso, hard drive inta soo qaadid computer gelisiduu shaqeynba waayo ka waran isaga laftiisa aamuso shidmi waayba, waa khatar kale taasina. soo markaas maxay hayday backup kuna ka weeyaan. sidoo kale haddaba muxuu yahay waxa loo yaqaan computer ethics. computer ethics waxa weeyaan waa sharciyada ama lowga ama sharciga oranaya ama sharciga qayaxaya computerka isticmaalkiisa. dawladaha waaweyn ee caalamka oo dhan waxay leeyihiin wax la yiraahdo maxay computer ethics guidelines ama laws sharci. qof kasta oo computer isticmaala waxa sameeya xeerkaas qabanaya. hadduu qofka computerkiisa waxa ku sameeyo ama uu cid haagareeyo company-ga xeerkaas qabanaya, hadduu waxa gaarsiiyo waxa qabanaya, waxa weeyaan computer ethics. laakiin haddii lagu yiraahdo iska isticmaal computerka waxa ku xadi karta ku xad, cidad ku haagareyn karta ku haagare, cidad waxan ku sameyn karta ku samee, sharcina kuma qabanayo. taasi ma suuragelayso, waa qalad weyn. so computerku wuxuu leeyahay maxay ethics society-ga. dadka ama computer usersku waxay leeyihiin sharci ama conducts qabanaya haddii hadhow toole qalad sameeyaan. so dawladaha dhan sharciyada way leeyihiin, laakiin wadankeena ma garanayo. ayadoo haddii maanta telesom la haagarayo ama shirkad kale xogteeda la hado lagu soo qabto maxkamadda lagu geeyo, I don't know inay sharci ka leeyihiin in computer ethics loo jiray inuu ma garan karayo. laakiin taa weeyaan waxa laga hadlaya computer ethics. so marka maxaa loo ogoliyay inaad ku isticmaashid computerka, maxaan la ogolayn, maxaan la ogolayn haddii aad samayso qalad ama illegal oo sharcigu ku qabanaya. so waxyaabaha in computer ethics ama conducts ama lowskiisa kamid ah qodobada halkan ku qoran oo kale example ahaan tusaale ahaan lama ogola computerka inaad computer qof kale wax ku yeesho. lama ogola shaqaaluhu inay maxay hayday interfere gareeyaan shaqaalahooda kale ama computerada shaqaalaha kale ku shaqeynayaan. lama ogola shaqaaluhu maxay hayday inay middle address noqdaan ama inay dadka kale faylashooda qaataan ama xadaan ama wax yeelaan. waxyaabadu waa waxaas weeyaan, waa sharciyad laga dejiyay. preference-guna haddaba muxuu yahay? information preference-gu waxa weeyaan maxay in xogta cidda u laaun ay eegi karto ama ciddii daatadan lahayd mooyaane aanay cid kale isticmaali karin. shirkadaha waxa jira, kombaniyada waxa jira adeegyadooda inuu isticmaalaan. haddaan tusaale idin soo qaato sad, qof waliba sad buu leeyahay, lacagteena ku jirta, maalinba lacagtaada kala baxdaad ku shubataad cid kale uga dirtaa. haddaad maanta dambi gashid oo dabeetana muxuu haayay hadhow toole inta telesom loo taga lagu yiraahdo maxay haydeen waxaan u baahanay hebelka magaciisa, waxaan u baahanay passwordkiisa iyo userkiisa, lacagtiisa accountkiisa u baahanay. taas waxay meel kaga dhacaysaa maxay information preference-gaaga. shirkadu xaq uma laha information-kii lagu aaminay ama xogtii dadka inay cid kale gacanta u geliso. so if shirkadu haddii xitaa dawladdu u timaado ciidan la soo hordhigo albaabada laga qofulo, xaq uma laha sharci ku qasbaya ama maxkamado xaq loogu leeyahay, dawladdu xaq ugu leedahay inay ku cadaadisaan ma jiro. way diidayaan, gacantana uma gelin karaan unless la helo maxay sharciyad ama authority saamaxaya in qofkaas ama uu xogta la siin karo oo kaliya mooyaan. so waxaas ayaa loo yaqaanaa maxay information preference. ugu dambeyntii computerada markaan isticmaalana ama applicationskan websiteska markaan isticmaalana waxay leeyihiin wax la yiraahdo cookie ama sessions.
so waa waxaanina kala ilaaliya. maalin walba markaad galaysaan Facebook account oo kale, weli qof intuu Facebook accountkiisii access gareeyay account qof kala galay miyaad aragteen? waa maya su-aashu. maxaa idin kala ilaalinaya talo? yaa idin dhex taagan? waxaan idin kala celinaya waa iyo talo ee systemka ku dhex jira, because waxaad isticmaalaysaan wax la yidhahda maxay session ama cookies privileges. qof walba u sheegaysa maxay roolkiisa iyo unique ID-giisa ama accountkiisu galaya iyo kuu ka baxayo. so taasina waa taa. waqtigoo nagu yar dartii waan dedejinaya, waan soo koobaya intaasaan ku dhaafina. laakiin kolley hadhow toole markaa insha allah revision baynu sameynaa ama ciddii ay ku adkaato dib baynu eegi doonaa. so quickgu waa maxay? waa user references ama waa tixraaca qofka isticmaalaya network ama communication networkskan kala duwan ama application ha noqdo ama in waxyaabahan aynu isticmaalayno. so small files on your computer that contains data about you. so markaad imaka Facebook aad ku xidhantid, maalinta ugu horeysaad mobilekaaga ama computerkaaga ka gashid wuxuu ku weydiinayaa maxay validation username and password. markaad geliso maalmaha ka dambeeya waxba ku weydiin maayo. waxa laga yaabaa inaad Facebookaaga ku qorto inuu iska furan yahayba uu ku garanayo.